marka ugu horeysa runtii sharaf bay ii tahay iyo maamuus in aad nagala soo qayb gashaan dhammaantiin arrintan ama kulankan lagu wadaagayo xogta tamarta wax badan baa inoo qabsoomay wax badanina way inaga horeeyaan insha Allah taala waxaan doonayaa si gaar ah inaan ugu mahadnaqo dhalinyaradii iyo shaqaalihii wasaaradda tamarta iyo macdanta ee golahan ama haddii Ilaahay ku roon yahay halkan quruxda badan inoo soo qabanqaabiyay markii hore waxaan ku talagalay in aan si fiican oo balbalaaran u sharxo waa maxay ujeedada joint sector review iyo iswaabka waxa la yiraahdo oo aan background ku daro laakiin waxa ila tahay inaan ku soo koobayo inaan u sharxo ujeedada aynu ka leenahay joint sector review-ga iyo iswaabka waxa ay yihiin inaan labadaba ku soo koobo inta kale haddii Ilaahay ku roon yahay agaasimaha guud aanu daayo iyo qodobada aynu doonayno inay shirkan ka soo baxaan in badan baan halkan ka hadlaynay haddaan wasaaradda nahay ama sectorka laakiin doorka waxaan doonaynaa inay maxsuulku noqdo mid ka soo baxa afka daneeyaasha haddii Ilaahay yiraahdo marka maxaa qabsoomay maxaa dib u dhacay maxaa u baahan in la saxo yaa mas'uulka goorma ayaa la fulinayaa iyo sidee ayaa loo dabagelayaa arrimaha sectorka iyo halka aynu doonaynay inaynu gaarsiino maadaama xaaladda dhabta ah ee waddankeenu uu yahay xaalad ku tiirsan had iyo jeer shidaalka si taa looga gudbo marka waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo joint sector review waa nidaam joogto ah oo ugu yaraan 2 jeer sanadkii la qabto waxaanu had iyo jeer su'aalaha la isku weydiiyo gudihiisa joint sector review waxa kamid ah in uu yahay qaab lagu hago horumarka in lagu xoojiyo isla xisaabtanka laguna tayeeyo laguna casriyeeyo qaabka aynu wada shaqeyno waxa laga yaabaa 12 shirkadood oo midiba sectorka dhinac ka soo gasho mid light shida mid energy-ga dabaysha ka dhalisa mid badda ka dhalisa mid qorraxda ka dhalisa haddana wax coordination oo ka dhaxeeya aanu jirin marka dalalka Rwanda iswaabka waxay runtii u isticmaaleen qaab ama hab lagu wada shaqeeyo la isku wareysto dabeetana lagu fuliyo wixii soo baxa marka shirkan joint sector review-ga oo uu golihiisu yahay joint sector review-ga iswaabku waa macnihiisu wuxuu noqonayaa nidaam wada shaqeyneed oo dhammaan dhinacyada ka shaqeeya tamarta horumarinta tamarta korontada noocay doontaba ha ahaatee ay wadaagaan jihada u socdaan marka inaynu inagana halkan shirkeenu uu noqdo inaynu jihadaynu u socono aynu wadaagno wixiina aynu transparent ka dhigno warkeenu uu noqdo waraynu wada wadaagno oo aan wasaaradda kaliya ku koobnayn ama aan sectorka intiisa kale ama shakhsi ku koobnayn si markaa balaanka dawladda iyo qorshaha dawladda ee dheer ee muddada dheer haddii Ilaahay ku roon yahay loogu shaqeeyo marka iswaabka iyo joint sectorku waa laba nidaam oo wada shaqeeya waxaan jecelahay in haddii Ilaahay yiraahdo shirkeenan inuu guul ku dhamaado insha Allah taala waxa ka soo baxana sidii wasiirku sheegay ay noqdaan wax 10 sanadood ee soo socda aynu ku dhaqano waxa dhaqan galay 10kii sano istiraatiijiyadii oo dhawaan iyaduna miiska iman doonta wax badan oo aynu u baahanahay inaynu synchronization ku sameeyno isu geeyno oo cidiba in hayso ayuun baa shirkan guddigiisu yahay